ucodeeyay in dadka reer Ukraine ee ku dhaqan wadanka barigiisu ay xaq u leeyihiin in ayahooda ka tashadaan isla markaana la siinayo awood dheeraad ayaa waxa ka dhashay cadho aad u fara badan oo ay markaa dadka magaalada Kiev ku dhaqan ee wadanka Ukraine ay ka cadhoodeen go'aanka baarlamaanku u gaaray xildhibaankan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka wadanka Ukraine ayaa dad aad badan oo cadhaysani waxa ay ku rideen goob qashinka lagu tuuro iyaga oo markaa u diiday in uu ka soo baxo goobta qashinka ah oo ay ugu hanjabeen markaa inay ku gubayaan haddii uu ka soo baxo talaabadan dadkan gadoodsan ayaa waxa la sheegay in xildhibaankan ay ku sheegeen iyo xildhibaano kaleba in ay markaa qarannimada wadanka Ukraine meel kaga dhaceen dadkan oo aad u cadhaysan ayaa waxa la sheegay in markaa ay ku hanjabeen isla markaana ay sheegeen in ay talaabooyin adag ay ka qaadi doonaan xildhibaanadii u codeeyay in bariga wadanka Ukraine markaa la siiyo xornimo dheeraada.